dhulka Soomaalidu degto ayaa waayada qaar waxaa ka jiray dhibaatooyin la moodi jiray in aan xal loo heli karin sababtuna waxay ahayd sida la sheego in aqoonta arrimaha lagu furdaamiyaa ay aad ugu yarayd waxaase haatan suuragal ah in xoolaha dhakhaatiir daryeeli karaa ay si fudud u heli karaan ardayda wax ka barata kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Goolis ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dhawaan sameeyeen dadaallo cusub oo ay ku caawinayaan dadka xoolo dhaqatada ah wariyaha BBC-da Cabdullaahi Jaamac ayaa faafahinta warkan Hargeysa ka soo diray jaamacadda Goolis ee magaalada Hargeysa kulliyadda xanaanada xoolaha ardayda dhigata ee sanadkan qalin jabinaysa iyo dhakhaatiirta wax u dhigta ayaa dhawaanahanba waxay wadeen inay kala badbaadiyaan xoolo oo badan kuwa dhali waayay oo markaasi ay u gargaareen caafimaad ahaan adeegan oon hore u jirin oo ay dhawaanahan soo kordhiyeen ayaa dad badani ka faa'iidaysteen Ahmaal Cabdi Askar waxay ka mid tahay dadka xoolo ay iyadu dhaqatay oo caafimaad darro degdeg ah ku soo booday wax looga qabtay waxay ri mataana dhashay ridaasi sidii u joogtay in way indhabeeshay muddo dhowr iyo 20 cisho ayay indhalayd anigoo yaabano istatala masaasay ku dhimanaysaa ridii maalmaha kamida ayaan carruurtaydan u keensaday markii aan u keenay indhaha dawooyin bay kaga shubaan dheelina way ii mudayeen isbuuc dhan baan soo celcelinayay alxamdulillah indhihii dib bay ugu dilaaceen Maxamed Axmed Dalmar waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadaasi waxa uu ka warramayaa xoolaha ay caafimaad ahaan wax u qabteen bisha March ilaa bishii January oo koowaad 13 baan qabanay oo ofiska soo gaaray xoolaha kala duwan mid qalin lagu sameeyay mid daweyn caadi loo daweynayay Muna Cabdi waxay si gaar ah uga warramaysaa neef ida ah oo ay ka soo saareen ilmo ku baqtiyay oo toddobaad caloosheeda ku jiray neefka idaha wuxuu ahaa neefkii xoolihii ugu dambeeyay uu kamid ahaa inkastoo kiisas ka dambeeyay ay dhaceen neefkii caafimaad qabaa qofkiina report buu soo sameeyaa maalin walba wax la dhaca ka waran neefkii uu badbaaday uuna fiican yahay insha Allah waxaan ka warsugaynaa in neefkaasi mar dambe dhali karayeen kale maadaama meeshii la jeexay sida xoolihii kale aan aragnayba ayaguna dhaleen iyaguna xarjinayna neefkaasina uu dib u qaado ilmuhu dib u dhalo xoolihii u dambeeyay ay kala badbaadiyeen ardayda xanaanada xoolaha baratay ee jaamacadda Goolis iyo waliba dhakhaatiirta wax u dhiga waxay ka dhacday magaalada Hargeysa meel ka baxsan oo baadiye ah oo neefkeeda uu dhali waayay Dr. Cabdi Xakiin Axmed Ismaaciil waa dhiinka kulliyadaasi waxa uu ka warramayaa wixii dhacay iyo sidii ay neefkaasi ula tacaaleen neefkaanu xalay qalnay wuxuu ahaa neef geela kaasoo sidkiisii u dhamaystirmay laakiin dhali waayay sababtuna ahayd ilmuhu qalloocay oo dadbanaa markay neefkii ku adkaatay inuu dhalo ilaahay wuxuu sahlay inaanu meeshii tagno neefkii aanu qaliin ku samayno kala badbaadino neefkaasi waxaa ka soo saarnay neef nirigtiina aad bay imika u fiican tahay hashiina way fiican tahay waan ka warhaynaa saaka waan ku noqonnay aad buu fiican tahay diiwaano guul soo hoyatay wadanka iyo ummadaba sidoo ku ogaatay neefkaasi geela ah ee ka baxsan magaalada ee halista ku jiray ee kala badbaadiseen waxaan la soo xiriiray dadkii neefka lahaa oo ehelna magaalada u deganaayeen qaarna miyiga deganaayeen markii ehelkii magaalada la soo xiriireen ayaa loo soo tilmaamay dad baa tilmaam ku yiri jaamacadaas adeega bixisa way noo yimaadeen runtii ismeel ahayn way qaban karayaan laakiin nasiib wanaag si degdeg aan uga jawaabnay miyigii baan u baxnay isla meeshii baanu ku qalnay neefkii waan ku guulaysan ilaahay fadligii adeegan ma bilaash baad ku qabataan mise dadka lacag baad ka qaadaan adeegan wax lacag kama qaadano bilaash baanu ku qalnaa dawadan qaliinka lagu sameeyay jaamacadda bixisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xasan wuxuu ka mid yahay dadkii iska lahaa neefkaasi geel ah ee la kala badbaadiyay dareenkiisa iyo sida hashaasi xaaladeedu ahayd markii hore iyo kadib markii la qalay ayuu ka warramayaa neefka geela waxa iskala odayay awwa marka hasha sidkeedu waa dhamaaday muddo 4 maalmoodna way foolanaysay markii ay aanu aragnay in aanay dhalayn ayaan la soo xiriirnay dhakhaatiirtan joogta jaamacadda Goolis marka waxay noo sheegeen in ay bal warbixinta dadka meesha jooga ay telefoonadooda aanu siino oo la hadlaan sida darteed ay wareystaan marka ay wareysteen loo sheegay xaaladii waxay yiraahdeen waanu bixi xaaladu ilaa halka u dambayso aqalin in neefka labada neef la kala badbaadiyo hadii ay gaarsiisan tahay waanu sameeynaa markaas asaanu inamada dhakhaatiirta ku qaadnay alxamdulillah waanay kala badbaadiyeen labadii neef
oo way hadda way caafimaad qabaan. hashii imika Cabdiraxmaan oo miyaa la maalayaa mise nirigtood ku sii deyseen? maya weli hashii maalitaan waa neef dhaawacan oo qalliin gaadhay marka horena fooshu ku adkaatay marka wax in la intifaacsado weli laguma tala jiro. nirigteediina maxaa la sameynaa? nirigtii waxaanu siinay waxa la yidhaahdaa geela iyo riya ayaa isku caana dhow marka neef riyaan u lisnaa ilaa xalay ilaa maanta caana riyaad baa iyada la siinay nirigta.